Zohran Mamdani wuxuu noqday maayarkii ugu horreeyay ee Muslim ah, ugu da'yaraa, uguna dhawaangalsanaa dalka Mareykanka. Sannad ka hor, markii uu Zohran u istaagay ololaha doorashada, waxay taageeradiisu ahayd boqolkiiba hal. Lama aqoon wuxuu ahaa 34 jir ka soo haajiray Uganda oo dhalashada Mareykanka qaatay sannadkii 2018. Waxaa intaa dheer inuusan hore xil u soo qaban, xoolana u haysan. Waxaa si mayal adag u diidanaa hantiilayaasha ugu lacagta badan adduunka ee New York degan, warbaahinta, loobiga Yuhuudda, iyo madaxweyne Trump iyo guurtida ay ka go'do talada xisbiga Jamhuuriga iyo kan Dimuqraadiga intaba. Jeebkiisu wuu marnaa, ma uusan haysan deeq-bixiyaal waaweyn oo garab istaaga. Waxaa la isweydiin karaa sidee ayuu kaga tallaabsaday dhammaan caqabadahaas, kuna jiray xooggii waaweynaa ee isku dayay inay hor istaagaan. Haddii aan furfurno weydiintan, waxaan oran karnaa: tan koowaad, ka go'naanshahan iyo ka midho dhalin hadaf, taas oo lagu kabay iimaan iyo kalsooni sugan. Ma uusan qarsan islaamnimadiisa iyo aidiyolojiyadiisa soshalistaha ah, sida oo kalena lama uusan gamban mowqifkiisa ku aadan dagaalka Gaza ee Falastiin. Tan labaad, ma uusan eegin caqabadaha waaweyn ee ku horgudban, wuxuu si quman u eegay fursadaha hortiisa yaalla ee uu ka faa'iidaysan karo. Awoodda ayuu u fahmay inay tahay isugeynta aqoonta, xirfadda, waqtiga iyo tamarta, iyada oo lagu abaabulay qorshe degsan oo looga faa'iidaysanayo teknoolojiyadda casriga ah ee warbaahinta baraha bulshada, taas oo maanta ah isha ugu muhiimsan ee adduunweynuhu la socdo. Tani waxay caddayn u tahay in dad abaabulan ay ka awood badan yihiin dhaqaale iyo awood kasta oo jirta. Wuxuu jebiyey derbi ku gudbanaa dad badan oo han leh, laakiin ka baqa awoodaha ay haystaan maalqabeennada, warbaahinta iyo guurtida xisbiyada siyaasadda. Waxaa kale oo caddayn u tahay in Mareykanka uu yahay dhulkii fursadaha, oo adiga oo dhawaangal ah, waxna haysan, horena xil muuqda u soo qaban, aad xukumi karto magaalo miisaaniyaddeedu ay tahay 115 bilyan iyo 300 oo kun oo shaqaale ah. Mamdani waa daahiro cusub oo xisbiyada dalka Mareykanka ka jira iyo xoogag kale ee siyaasadda saameynta ku leh ay darsi doonaan ka hor doorashooyinka soo socda. Mamdani iyo wiilka isirkiisu Soomaaligu yahay ee u tartamayay maayarka magaalada Minneapolis waa isku jiil, xisbi iyo garab isku aagna way kaga qornaayeen doorashada. Faatax, waxaan u rajaynayaa inuusan hankiisa jebin, ruuxdiisuna liicin, oo dadaalka iyo kartida shakhsiga ah uu halkaasi ka wado.